السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وعبد الرحمن يوسف العدالة كسو دوادة داوديال برنامج كمدشا وبرنامج دود وداقاه أو كسينا يا فرصدو آدوغا غيب قشو أركتدادنا آدوغا ديبتو حالدها كسعودا ودن كصوماليا برنامج كواحد أركتيد إنه قد ديبا كرتان براها آنو كلنا هاي بلشدا فيسبوك تويتر كا يسدو كاليتو آلدا بلشدا سكيب كا تدواد والبا waxaanu ku soo qaadan doonaa mowduuc gaar ah oo aanu si gaar ah u falanqayn doono. waxaad hubisaa mar kasta oo aad ku dadaashaa in aragtidaadu ayna soo gaartay. toddobaadkan waxaanu ka wada hadli doonaa oo aanu eegi doonaa xaaladda ammaanka ee waddanka Soomaaliya sida aad ogtihiin waxaa dadaal badan ay dawladdu ugu jirtaa sidii amniga loo xaqiijin lahaa. hase ahaatee weli waxaa jira falalka argagixisadu ay wado ee dhibaatooyinka ay ku geysanayaan. haddaba si loo helo Soomaaliya oo xasiloon oo iswaafaqsan maxaa dheeri ah oo ay tahay in la sameeyo. مدة يجلس أشدنا أبنية ورنتا أبنية دولتها هدي أي إسكاشدان أيدي الشعبك وهوين بكسب بهاي مشاس. مركان سكورت وحالوه هلي كرا مرول وحالوه هلا سكورت وإن هرت له هلا أمينات شعبك. أن أبنية سيدي سبب أبنية هو شيء مهم ما واحد لا يرصده. كو قفل باص صوماليات أمانين هذا أمان نجاهاته مسؤوليات أيها كسرن. عسكري الشعب أنتوا بقى. دولتي waxaa looga baahan yahay horta dadweynaha iyo shacabka inay soo jiidato mid koowaad mid labaad waa inay dadka hadii oo maanta laba nin ama isdagaalaan si xaqooda si daacadnimo loogu kala saaro dalka waxa ka imaan doonta markaas nabad wada shaqeyn ayadii shacabkuna ka imaan doonta hadii laakiin ninkii shacabka iyo ninka kale oo isdagaalay aad xaqooda ama u kala fooq waafajineen gartiisa iyo gardaridiisa kala saareen ماشاء دبعتها كجرت. كو إنك عسكري جوه 24 ساعة تاجي هاي إنه أمني جسقه. عسكري كل جيس هم مصيكر هذا الشعب كله شغين. أن اليرد الصوماليات لا شغين. وإحنا ما قابن كرو. وهاللي رفر كل جيس فول ما نقضه. نينكو أركايا. أدو ميلو كلو ما ليسنا يا أركايا. ميلو كسبة يا أركايا. هذا عسكري حرير في عن وجوكتا عن لسمين عن كل سوني كهلين وحبوا مسؤول تقلا. أفر لبعض السادة كان تاجن تاي. نينك دلنا يرد أما الشعب كان وحبوا كوسو شجن عن كل سوني كهلين وحبوا ما قابن كرتيد واي. لا ميجا ساتاجنا كرتا وحي كنا فاي وحي كلوا كنترول كرتا لكن حفظا وحي كجرو وحي كلمو جان كرتيد. كو waxaan dhihi lahaa boqolkiiba boqol inay isu dagaalaan shacabka ay la shaqeeyaan dawladda ciidamada nabad sugidda ay la shaqeeyaan ciidamada nabad ilaalinta ay la shaqeeyaan si loo helo security fiican oo wadankan uu dib ugu dhismo saasa lagu soo bareyn karkaa wadanka taas ay la tayray ahaanteeda su'aalahaas iyo kuwa kale si aanu jawaabo ugu helno waxa sharaf inoo ah oo aanu barnaamijka ku casuunay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Iriisow oo ah nin siyaasi ah oo rugcada ah kana faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda hadii alla uu qadaro barnaamijka ayuu naga la qayb gali doonaa soo dhaw marka hore injineer Iriisow waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga العدالة أدي ما سنتهاي سيدو كلا برنامج كان مدشة وسوق بن قابسي إذا وحن أدي ما هالعلني موضوع إذا مهم كشعب كوه يصير يوصل بندقية. وما تنتهي سيدا أي سؤال شو يقول رئيس بقى هيد سوماليا مرحلة الله صعدت وادو جدا محاي كلتها هاي أو ديري أهمان تمشي اللي جوجو إن الله سمين كرا سلوا لما يستروا دباتوين كيرير إجراء حاجة أمنية. وحقيقة إن واحد بدل السواق بتي لأنك أمنية قريبة مدنان أي دولته إثبت بدلي صوص مايين حدنا مريس مرحلة رنتي لورن كرا إن هرمر بلارن باجرة waxaa kaloo jiro ciidamo aan walaalanahay Afrikaana oo wadanka u yimid si ay u saacidaan dawladda shacabka dadaaladaas oo dhan iyagoo socdo haddana caqabadaha jira darteed waxay keenaysaa in mar walbaba dadaalada jira la sii dheereeyo hadda waxa la qaban karaa waxyaalaha ugu horeeya oo mudnaanta ugu jira dawladda waxay tahay in goobaha ay ku harsan yihiin kooxaha nabadiidka ah la soo afjaro la soo qabto loo diido meelaha iska soo abaabulaan oo ay dadka dhibaato u geeyaan labo waxa kale oo dawladdu u qorshaysan oo socda in wacyigelinta bulshada sidii bulshada iyo ciidanku wada shaqeyn lahaayeen saddex waxa kale oo la qaban karaa iyadana muhiim ah in tayeenta ciidanka la sii wada oo la sii dhiirigeliyo si ay u sahlanaato in ay amniga iyo xasilinta dalka u sugaan afar iyadana waxa kale oo barbar socda hay-adihii dawliga ah in la dhiso oo shacabkii wax loo qabto waa isku xiran yihiin amniga iyo horumarka shacabku intii yaro amniga waa inay arkaan dawlad wax qabanaysa oo horumar maalin walba sameynaysa marka
arrimo fara badan baa jira. waxaa kaloo iyadana jira muxuu ahaa sidii ciidamada laysugu dhafi lahaa oo gobollada qaarkood la socoto sida Puntland iyo Somaliland iyo weli ciidamadoodii iyo ciidamadii dowladda qaranka weli ayagana sidii maaragtay loo midayn lahaa ciidan qaran oo midaysan loo sameyn lahaa. marka arrimahaas oo dhan baa hor yaalla. aad baan kugu mahad celinaynaa. waxay dadku isweydiinayaan arrimo badan baad sheegtay, sidee mudnaanta u kala leeyihiin bay kula tahay oo ay ugu kala muhiimsan yihiin duruufaha? runtii annaga marxaladda hadda aan ku jirno wax walba mudnaan gaar ayay noo wada leeyihiin, laakiin haddaba Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu ahaa taagtaada ayaa la socdaa. dowladda federaalku ma haysato dhaqaalihii loo baahnaa oo ciidanku ay istaahileen. waa la socotaa ciidanku waxay muddo ku shaqaynayeen, ay frontline-kan u joogeen, una difaacayeen shacabka iyo dalka iyo diintaba ayagoon maaragtay helin dhaqaalihii ku filnaa, ha noqoto mushaaraadkii, ha noqoto saaliidkii caafimaadka iyo muxuu ahaa qalabkii ay u baahnaayeen inay ku dagaalamaan. dhaqaalaha ayaa keenaya in waxyaalo badan oo dowladdu ay rabtay inay qabato inuusan u qabsoomin. marka hadba sidii dhaqaalo loo xiro, hadba sidii muxuu ahaa taagto ay keento ayay noqonaysaa in mudnaantana ay kala noqoto. laakiin waxa ugu horreeya hadda waxay tahay in lasoo afjaro dagaalkan lagula jiro kooxaha nabadiidka ah. marka injineer Yariso sida aad sheegtay, maadaama dadaal badan la sameynayo, hadda laba dhibaato ayaa jirta. mid waxay tahay in amnigii gudaha meelihii laga saaray al-shabaab ay dhibaato ka geysanayaan, midna waxay tahay in meelo ay weli haystaan. labadaas tee la horumarinaya? runtii waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. saa la socotid baa arrimahan horey dowladda uga tabaabushhaysatay. kow qorshuhu wuxuu ahaa meel kastoo la qabto in lagu nagaado, loo diido al-shabaab inay soo noqdaan. dhowrar sanooyin ka hor waxaa dhici jirtay in meeshii laga qabto kadib haddana ay kusoo laabtaan. taas waa lagu guulaystay. maanta alxamdulilah meel kasta oo ciidanku ay qabtaan waa lagu nagaaday. kadibna ciidankii waxay ka fikiraan xasilinta goobahaas la qabtay, sidii nabad u noqon lahayd, sidii booliiskii iyo hay-adihii dowladda ay uga shaqayn lahaayeen, sidii shacabku ay ayahooda uga tashan lahaayeen, sidii shacabka ay u dareemi lahaayeen in amni iyo nacaaw iyo nabadeyn ay timid. taas iyadoo la wada ayaa haddana weli ciidankii waxay joogaan frontline-kii oo ay isla markaana ka badbaadinayaan deegaankaas in lagu soo laabto. kadibna qorshahooda uu yahay inta dhiman in la dhammaystiro. marka waa howl laysku wado. bacdamaa dowladdu aysan haysan dhaqaalo ku filanna marmarka qaarkood ay dhacdo inay howlaha sidii la rabay aysan u socon, ay gaabis yimaado, laakiin qorshuhu weli waa sidiisii. aragtiyada aad soo dhiibateen ayaanu iminkana aadaynaa daawadayaal ee Facebook iyo Twitterka aad noogu soo dirteen. nin la yidhaahdo injineer Hanad Cali oo magaalada Muqdisho jooga waxa uu leeyahay, anigu waxaan soo jeedinayaa in la xoojiyo fikraddii hay-adaha amnigu hadda ka hor ay keeneen ay ahayd in la tira koobo dadka degan magaalada Muqdisho. Yaangi Qadar oo isna jooga Hargeysana waxa uu leeyahay, waxaan ku talinayaa in ciidamada iyo shacabku ay yeeshaan iskaashi. isna waxaa aragtidiisa soo dhiibtay nin kaleeto oo la yidhaahdo Kunciil Salaad oo jooga magaalada Muqdisho. isagu wuxuu ku talinayaa in ciidamada la qalabeeyo, garaam la siiyo, mushaaro ku filan la siiyo iyo daawooyin. markaas ayuu leeyahay waxaa imaan karaa amni. injineer Yariso haye aragtiyadaas ay soo dhiibteen maxay kula tahay? runtii waxaan uga mahad celinayaa kasoo qaybgalkooda oo runtii muhiim u ah barnaamijkan. waxaana dareemaysaa in saddexda aragtiba ay yihiin saddex aragtiba wada muhiim ah. tan koowaad oo barnaamijka tirakoobku ay hay-adaha amniga sameeyeen waa u socdaa. magaalada Muqdisho waa la socotaan 17 degmo iyo muxuu ahaa shacab aad u fara badan baa degan, laakiin qorshahaas qorsho socdo waayo. dhinacna dowladdu waxay ka sameynaysaa sharciyaddii iyo nidaamkii loo baahnaa si aan shacabka looga xadgudbin. oo dowladdu ma aha kooxaha maleeshiyaadka oo kale waxay doonaan iska sameeyo, shacabkana argagax geliyo. marka taas dhinacna waxaan wadnaa qorshihii ah sidee dadka looga joojin karaa inay hub magaalada ku wataan, sidee guri walba iyo qofkii degan loo ogaan karaa inuu yahay qofkii saxda ahaa, sidee aan shacabka loogu soo dhex dhuuman karin. marka tirakoobka isaga waa u socdaa. waxaa barbar socda sidaan kuu sheegay ciidamadii iyo tayeentooda wixii. sidoo kale Yaan Qadar oo isagana Hargeysa aad iyo aad uga mahad celinaynaa. arrinta uu sheegay waa muhiim. shacabka iyo ciidanka haddaysan wada shaqaynin wax hagaagaya ma laha. shacabka waxay u taagan yihiin ciidanka, ciidankana waxay u joogaan inay badbaadiyaan shacabka. marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. dadaalkeeda waa u socdaa. sidoo kale raadiyo Muqdisho iyo TV-ga qarankana barnaamijyo wacyigelin ah oo shacabka la dareensiinayo faa'iidada nabaddu ay leedahay, faa'iidada dowladnimadu ay leedahay, faa'iidada in wax la leeyahay waa iyadana waa muhiim. iyo Kunciil oo runtii isagana maaragtay Salaad arrinta uu ka dhawaajiyo ah in ciidanka loo helo dhaqaale ku filan. iyadana waa mid ay madaxweynuhu meel walba u tago, ra-iisul wasaaruhu wadamo walba ugu tagaan, caalamkana mar walba laga codsado
in ciidanka ay tahay habka keliya ay Soomaaliya uga bixi karto dhibkan in ciidamada amisom ay jooga ay bedelaan ciidamo Soomaaliya si ay u bedelaan oo inay helaan tasiilaadka u baahnaayeen dadaalkaas isagana waa socdaa. waa mahadsantahay injineer. waayahay haatanna waxaan jeclaan lahaa in aan u wareego xaggaas iyo qadka Skype-ka si aad aragtidiina uga dhiibataan barnaamijka madasha. qofka ugu horeeya ee qadka Skype-ka ku jira ayaan soo dhaweynayaa. qofka ugu horeeya ee qadka Skype-ka ku jira ayaan doonayaa inaan la hadlo. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة. walaal magacaaga iyo meeshaad naga soo wacayso? مختار حاج حسن هلولة وحان كاسو وعيام مقالة مقدشو. mukhtaar barnaamijka waad la socotaa madasha soo maaha? سفي عن qodobka doodana waad la socotaa? سفي عن haye walaal ra'yigaaga iyo su-aashaada. رأيي وحاواي مركو هرورت وادي سلام دمانتي marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Muqdisho qaybaha amniga booliska iyo nabad sugidda dadaal weyn ay muujiyeen 24 waxay taagan yihiin isgoosyada aad ayaa wax xambalayna maada koowaad tan labaad caqabad yar oo jirta oo dhinaca shacabka dhalinyarada oo wadooyinka wada xirxireen marka waxa uu baaqayaa inay wadooyinka furaan qodobkan ka doodayno mukhtaar oo amnigii maadaama wax badan laga qabto la hagaajiyo maxaa dheeri oo la sameyn karaa maxay kula tahay adiga in la sameyn karo dheeri amniga waxa waa blogyadan wadooyinkan la dhigay hal kale waxa fiican in hal kale loo raadiyo wadooyinka qaar oo meesha istaraatiijiyada shantraalaha waxay dhigeen blogyo haddana qaar ka mid ah kuwii hotelada marshi biyadii oo shacabka looga talagalay waxay dhigeen tabeela oo waxaa jira no backing ku qoran oo wadada laamiga dhexdiisa marshibiyada la soo dhigay marka waxaa loo baahan yahay mararka qaar hadda waxaa jira hadana oo madax ama wafdi imaanaya wadooyinka la xiro shacabka oo masaakiinta wadooyin ku xamaalanaya oo ku xamaalanaya magaalada gudaheeda oo soo bixi karin mar haddii wadada la xiro kuwa xamaaliga ma soo bixi karaan kuwa racdada maxaad rabtaa markaa in la sameeyo maxaa waa fahmnay inay dhib kugu tahay seed rabtaa in la yeelo maxaad ku talinaysaa soo adoo soo koobayana anaa soo koobaya dawladdu waxaa laga rabaa si oo xal oo maskax ahaan kaarti u soo degmanaan oo maskaxiyan oo blogyadan ka casriyaysan maskax ka casriyaysan oo amniga loogu sugi karo wadooyinkan lagu leexin karo blogyada oo shacabkana macnaha wadooyinka laga xirin markii wafdi soo degayo iyo macnaha markii madaxda imaanaysaba in oo si oo nadiif shacabkana wadooyinka uga socdaan oo qabateen loo saarin waad mahadsantahay walaal injineerihiisa hay waa run mukhtaar runtii aadan iyo aad uga mahad celinaa arrintan waa arrin dhibaato jirto dawladdana murugo fara badan ku hayso waxaa la rabaa oo ciladu ay tahay dadka nabadiidka waa dad shacabkii ku dhex jiro oo Soomaali ah labo waxa ay isticmaalaan tan ugu badan oo qaraxida ay u geystaan waa gaadiidka si haddaba loo badbaadiyo mas'uuliyiinta iyo shacabka intiisa kaleba waxa qasab noqotay in jidgooyo meelo badan laga sameeyo iyadoo ujeedada ka dambaysa ay tahay in amnigu hagaago amni la helo dadka ku soo dhex dhuumaaleynayna la qabto marka runtii shacabka aad uga mahad celinaa sida ay ula shaqeeyeen laakiin dawladdu aad iyo aad bay ugu walwalaysaa jidgooyooyinka waxaana jiro qorsho nidaam sidii jid walba loo furi lahaa isla markaana gaadiidka wada walxaa qarxana maaragtay isla markii xal loogu heli lahaa marka waa laba arrin mid kala dooro hadda anaga muhiimadda koowaad waxay tahay sidii loo badbaadin lahaa shacabka oo dhibaato ku timaada looga badbaadin lahaa waxaan rajaynaynaa in mar dhow aan gaarno marxalad jid dambe xiran uusan jirin waddankii amni ah gaari qarax ku jirin uusan ku dhex socon karin waddanka Soomaaliya aad buu mahadsan yahay qofkaasi nagula soo xiriiray qadka Skype-ka